diyaar marnaba uma yahayn si niyad sami ah inay arrintaas u gasho wada hadallada. heshiiska Ethiopia iyo Somaliland wuxuu ku qotomaa in laga kireeyo meel ka mid ah xeebaha Somaliland iyadoo lagaga bedelanayo aqoonsi rasmi ah oo ay siiso Somaliland. marka waxa weeyaan waxa is complete garaynaya legal case-kii iyo political case-kii. safarkaas waxa kale oo mudnaan gaar ah siinayay ballaarinta doorka dekada Berbera. wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qadiyadda Somaliland iyo waliba intii uu joogay xilka wasaaradda dadaalka ay wasaaraddu ku bixisay sidii Somaliland ay xiriir u samayn lahayd wadamada caalamka iyo waliba dadaaladii ay ku bixiyeen sidii Somaliland ay aqoonsi caalami uga heli lahayd caalamka. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu taabtay wadahadaladii Somaliland ay la gashay Soomaaliya iyo sidoo kale heshiiskii dhex maray Somaliland iyo Ethiopia kaasi oo salka ku hayay in Ethiopia laga kireeyo qaybo ka mid ah badda Somaliland, Ethiopiana ay ictiraafto qadiyadda Somaliland. wasiir Dr. Ciise Kayd oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka hore madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda, wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee dibadaha, shacabka qaaliga ah ee Somaliland waxaad iga guddoontaan salaan qiimo badan. waxa aan halkan hambalyo u dirayaa madaxweynaha la doortay, madaxweynaha qaranka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan ka saamo una hambalyeeyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland ee hadda shaqada ka fadhiistay mudane Muuse Biixi Cabdi sida qiimaha lahayd ee u qabtay doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo sidii sharafta leh ee u aqbalay natiijadii doorashada dhacday November 13keedii 2024. waxa kale oo aan hambalyo iyo dhiirigelin aan u dirayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda, kuwa xarunta jooga iyo kuwa dibadaha ka shaqeeya oo qabtay shaqo baaxad leh oo muuqata intii aan xilka hayay. waxaa tihiin lafdhabar waana idin mahadnaqaya. inta badan waxa la xusaa laba safiir ayaa baan ka maqlaa oo safiirka jooga Mareykan iyo ka jooga Taiwan, laakiin bil xaqiiqa shaqada qabtan taa way ka badan tahay. ragga shaqeeyana aad bay fara badan yihiin. waxa ka mid ah Sakariye oo inoo jooga Sweden oo hawsha ugu weyn qabtay intan xilka hayay oo ka shaqeeyay in 110 xildhibaan wax ka badan ay diyaar u yihiin inay daafacaan una codeeyaan qarannimada Somaliland. waxa kaloo aan halkan isna hambalyo u dirayaa Maxamed Lenin ninka la yiraahdo Norway jooga oo isaguna wafdiye badan ka shaqeeyay xiriirka Somaliland iyo Norway si xoog ah u shaqeeyay. waxaan salaan u dirayaa Cabdi Cabdilaahi oo UK jooga oo shaqaad iyo fara badan qabtay, isku xidhay diasporihii iyo siyaasiyiintii dalka. waxaan u dirayaa salaan aad fara badan iyo mahadnaqisna u dirayaa Mustafa oo Germany jooga, Bashir God oo USA jooga oo runtii shaqo culus isna haya, iyo Maxamed Xaaji oo jooga Taiwan oo safarkii Taiwan ku tagay waxyaabihii aan soo seexanay Taiwan la soo seexanay tixgelinteedii iyo dabagalkeedii runtii aad uga shaqeeyay. khudbadan si kooban waxaan uga hadlayaa baaxadda ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, shaqooyinka baaxadda leh ee aanu ka qabanay wasaaradda arrimaha dibadda intii aan xilka hayay, qorshayaasha degsan, meesha loo socdo iyo siyaasadda guud ee arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland.
anigoo ahaa wasiirkii 14aad ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaan dhawaan wareejin doonaa haddii aan la yiraahdo xilka wasaaradda aan ku wareejin doonaa wasiirka cusub ee la magacaabay. waxaan jeclahay in khudbadan ma aha tii xil wareejinta. khudbadani waxa weeyaan public consumption waxa la yiraahdo oo ummadda loo sheegayo wax qabad. khudbadda aan jeedin doono marka xil wareejintu waxyaabo badan oo xasaasi oo laga sheegi karin TV-yada amba aan laga hadli karin oo gaar u ahaanaya wasaaradda ayaan la qaybsan doonaa waana ku soo dhaweyn doonaa haddii la yiraahdo marka uu xilka uu la wareego. ilaa September 2021 waxaan ahaa waxaan mudnaan weyn siiyey inaan u adeego qaranka ku dhawaad 3 sano iyo badh. muddadaas waxaan samaynay kobac adkaysi iyo horumar la taaban karo oo ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland. muddadaas waxaanu si wada jir ah uga shaqaynay si kor loogu qaadi lahaa magaca ay Somaliland ku leedahay masraxa caalamka. intii aan xilka hayay shaqada guud ahaanba wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay ku dhisan tahay arrimahan hoos ku xusaneen soo socda: horumarinta danaha iyo qiimka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, xaqiijinta aqoonsiga Somaliland ee Jamhuuriyadda Somaliland ee caalamiga ah, iyo in laga mid noqdo qaramada midoobay iyo bulshada adduunka. Number 3, ilaalinta madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland iyo wadajirkeeda dhuleed ee xuduudda ah 16 Juun 1960. abuurista nabad iyo xasilooni gudaha dalka Somaliland iyadoo gacan laga geysanayo dadaalada caalamiga ah ee ka dhanka ah argagixisada, badcadbadeeda iyo dambiyada abaabulan. in kor loo qaado barwaaqada dhaqaale ee Somaliland iyadoo la soo jeedinayo maalgashi shisheeye oo toos ah, kaalmo horumarineed iyo ballaarinta ganacsi si waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka ee kala duwan. guulaha muhiimka ah ee aanu gaadhnay 3 sano ee u dambeeyay ama 3 sano iyo markii u dambeeyay waxaa ka mid ah dib u habaynta wasaaradda arrimaha dibadda. ujeedooyinkayga koowaad waxaa ka mid ahaa inaan xoojino tayada hay'adda ee wasaaradda arrimaha dibadda. muddadaas waxaanu hirgelinay dib u habayn la taaban karo oo kor u qaadaya tayada shaqo ee wasaaradda iyo dowladnimada. waxaanu samaynay siyaasado iyo habraac muhiim ah oo ay ka mid yihiin xeerarka isgaarsiinta gudaha iyo dibadda, internal and external communication policy, qabyo qoraal xeerka adeega dibadda ee Somaliland Foreign Service Act, tilmaamaha howlgalka wakiilada Somaliland Mission Guidelines, hagaha baasaboorka diblomaasiyadeed Diplomatic Passport Guidelines. dib u habayntani aanu samaynay kuma koobna oo keliya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay noqoto hay'ad dowladeed oo awood u leh shaqadeeda. sidoo kale waxay Somaliland ka dhigtay dal dhab ah oo karti u leh ka mid noqoshada diblomaasiyadda caalamka. ballaarinta raadka diblomaasiyadda Somaliland. muddadii aan xilka hayay waxa aanu wadnay siyaasad arrimo dibadeed oo hufan isla markaana firfircoon, annagoo la macaamilanay ku dhawaad 60 waddan oo ku kala baahsan Africa, Asia, Europe iyo waqooyiga America, North America. waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah boqoshooyin heerkoodu sarreeyo oo aanu ku tagnay dalal badan oo ka mid yihiin Mareykanka, Canada, Sweden, Finland
Holland, France, Belgium, Germany, Swatini, Taiwan iyo wadamo badan oo saameyn ku leh xiriirka iyo aqoonsiga Somaliland iyo kobcinta iskaashiga dhaqaale iyo amniga. safarrada diblomaasiyadeed oo aanu ku fidinay wadamada qaaradda Afrika iyo xoojinta xiriirka gobolka iyo iskaashiga caqabadaha la wadaaga sida amniga iyo iskaashiga caqabadaha la wadaago sida amniga, ganacsiga iyo horumarka. waxaanu xiriir dhow la yeelanay ururada muhiimka ah ee caalamiga ah iyo kuwa gobolka oo ay ku jiraan qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo kuwa kale, iyadoo aan hubinayo in codka Somaliland laga maqlo golayaasha caalamka. kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed Jamhuuriyadda Somaliland. magaca Somaliland wuxuu gaaray heerarkii ugu sarreeyay intii ay Somaliland jirtay, oo aan ay hore u gaadhin. waxaanu si joogto ah ula socodsiinay beesha caalamka ah in howlwadeenada ajnabiga ah in arrimaha mudnaanta leh iyo himilooyinka Somaliland annagoo u qaybinay warbixino tayo sare leh, war-saxaafadeedo iyo warmurtiyeed ku baxay afaf fara badan. Somaliland waxay noqotay wadan loo aqoonsan yahay inuu gacan ka geysto xasilloonida gobolka iyo caalamka, iyada oo dowladnimadeeda dimuqraadiga ah iyo xasilloonideena ay tusaale u tahay gobol aan xasiloonayn. si wadista aqoonsiga rumaad Somaliland mid ka mid ah hindisiyaasha ugu muhiimsan ee muddada aan xilka hayay aan si fogeyna waxaa ka mid ahaa horumarinta dood sharciyeedka dhammaystiran. waxaynu maqashaan dadayaal fara badan oo ama shacaba ama siyaasiya oo criticize garaya wasaaradda arrimaha dibadda oo u malaynaya wasaaradda arrimaha dibaddu inaanay lahayn wax dhaqdhaqaaq sharciyeed oo u fasaxaya inay kayska Somaliland adduunyada horgeyso. waxaanu diyaarinay oo khubaro Maraykana iyo Ingiriis anagoo kaashanayna waxa la yiraahdaa the legal case of Somaliland. waxaan hore u jirin waxa weeyaan legal case-ka Somaliland ay adduunyada la hortagayso mid wasiir walo iga dambeeya dawlad walo in xukunka haysa ay isticmaali karto waayo waa legal case dhan. khubarada ka shaqeysay oo aan markii hore waa Maraykan iyo Ingiriis oo kuwii ka shaqeeyay Kosovo oo kale waxay noo xaqiijiyeen in kayska Somaliland uu ka itaal badan yahay, ka wanaagsan yahay ka Kosovo lafteeda. sharcinimada taariikheed markaan ka hadlo waxa aanu hoos ka xariiqnay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan oo xornimadiisa qaatay 26 June 1960 ka hor intii aanay la midoobin Soomaaliya. xaqiiqada taariikhiga ahi waxay caddaynaysaa xaqa Somaliland u leedahay inay dib ula soo noqoto qarannimadeeda. shuruucda caalamiga ah ee ku aadan qadiyadda Somaliland. kiiska sharciga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ku qotomaa qodobo muhiim ah oo ka mid ah shuruucda caalamiga ah taasoo muujinaysa in raadinta aqoonsiga Somaliland uu waafaqsan yahay mabaadi'da sharciga ee lagu maamulo ayo ka tashiga iyo qarannimada dawladda. ismaamulka dimuqraadiga ah
waxaanu iftiiminay in hay-adaha dimuqraadiga ah ee Somaliland si nabad ah u kala wareejiyaan awoodaha xilliyada doorashada rabitaanka shacabka Somaliland waxa ay si joogto ah u muujiyeen rabitaankooda madax bannaanida taas oo cadaynaysa afti dimuqraadi ah iyo taageero joogto ah ee dowladnimada ay u hayaan waxay ogeydeen in almost boqolkiiba 97% boqolkiiba 97 ay codeeyeen Somaliland ay gooni isu taagto anaga waxna ku yeelan kuna darsamin dowladda Muqdisho ama taliska xamar xasiloonida gobolka markaynu ka hadalno aqoonsiga Somaliland ma xaqiijinayo kaliya xuquuqdeeda muwaadiniinta balse waxa uu sidoo kale ka qayb qaadanaysaa nabadda iyo xasiloonida gobolka marka Somaliland oo nabadi ay jirto gobolkuna nabad ayuu jiraa laakiin Somaliland oo qasan haday jirto gobolku runtii dhibaato ayaa la kulmaya qaab dhismeedkan sharci waxa uu si weyn u horumariyay qadiyadii aqoonsiga Somaliland isagoo saldhig adag oo ah hawlgalka diblomaasiyadeed ee mustaqbalka hiigsiga diblomaasiyadda Somaliland ku talaabsatay intii aan wasiirka arrimaha dibadda ahaa waxa weeyaan afgaradkii Ethiopia iyo Somaliland waxaan jeclahay tahay inaan siira dul taago waxaan idinkala hadlay waxa la yidhaha legal case waxa weeyaan kiiska sharciyeed ee Somaliland xaq u leedahay inay dal madax bannaan noqoto waxa markaa meesha soo galay Kosovo kale imika haddaynu soo qaadano legal case wanaagsan markay la yimaadeen waxa loo baahday political case wax la yidhaahdo political case kuna waxa weeye dal markuu case-kaaga arko legal case-kaaga siduu strong u yahay oo culus yahay dal ku aqoonsada oo yidhaahda waan ku aqoonsanayaa dalalkii aan marayay intii aan wasiirka ahaa Europe North America Africa meel walba waxaa loo baahday legal case-kiina marka la arko oo aan la dafri karin in lala yimaado political case markaa maxay noqotay waa inaynu helnaa dal ina aqoonsado number 1 waxaanu markaa ka fikirnay aniga iyo madaxweynuhu iyaynu la doonanaa oo iyaynu nidhaahdaa halana aqoonsado waxaa markaa muhiim noqotay in Ethiopia aynu jaar nahay dhaqaale wadaagno isku xidhan yihiin dhaqaaleheena iyo baac mushtarkeenu inaynu geyno aynu hoos dhigno taas heshiiska afgaradka ee 2024kii January 1 Jamhuuriyadda Somaliland taas oo ka turjumaysa sida ay Somaliland uga go'an tahay istiraatiijiyad cad oo ku aadan kobcinta xasiloonida gobolka iyo horumarka dhaqaalaha heshiiska Ethiopia Somaliland wuxuu ku qotomaa in laga kireeyo meel ka mid ah xeebaha Somaliland iyadoo lagaga bedelanayo aqoonsi rasmi ah oo ay siiso Somaliland marka waxa weeyaan waxa is complete gareynaya legal case-kii iyo political case-kii safarkaas waxa kale oo mudnaan gaar ah siinayay ballaarinta doorka dekada Berbera oo ah marin ganacsiyeed muhiim ah Ethiopia sida MOU sheegayo waxa weeyaan MOU baa la saxeexay
obviously waxa dhacaysa markaa MOU-ga inuu galo khubarooyinka Somaliland iyo khubarada Ethiopia in ay ka wada hadlaan ka doodaan in heshiiska MOU-ga waxyaabaha markiiba soo galay magaalada runtii xaqiiqadu way ka fogeen 50 sano 25 kilometer all that stuff madaxweynuhu markii MOU-ga laga shaqeynayay waxyaabo badan baan dib ugu noqonay maxaa dalka dano maxaa cimilada dano halkee laga dhigi karaa wax dhul ah oo lagu ballan qaaday ma jiro waa bad kooban oo Ethiopia awoodi karto inay ku bixiso lacagaha inay iskaga bixiso lacagaha adduunyada baysaska caalamiga ah lagu kirayso kilometerkiiba marka inta ka gudbo markii aan wasiirka noqday ay ugu horeysay waxaan arkay in loo baahan yahay in diasporaha Somaliland xoog loo isticmaalo oo la dardargeliyo oo laga shaqeeyo waayo qof waloo diasporaha Somaliland ka midaba wuxuu awood u leeyahay kaarkiisa uu ka codeynayo inuu siyaasiga dalka u joogo kaga dhaadhiciyo in uu taageero qadiyadda Somaliland waxyaabihii ugu muhiimsanaa muddadii aan xilka hayay waxa kale ka mid ah xiriirka ballaarnaa ee aan la yeelanay jaaliyada qurbajooga Somaliland ee ku nool daafaha caalamka annagoo aqoonsan doorka muhiimka ah ee qurbajooga u leeyihiin horumarka Somaliland iyo ololeynta ictiraafka caalamiga ah waxaanu mudnaanta siinay xiriirka tooska ah iyo wada shaqeynta jaaliyada waxaanu sameynay wacyigelin iyo la tashi ballaaran jaaliyadaha qurbajooga ee ku nool waqooyiga America, Europe, bariga dhexe, Asia iyo Africa waxaanu agaasinay kulamo lagu xoojinayo xiriirka ka dhaxeeya qurbajooga dalkooda iyo dalkooda Somaliland iyadoo diiradda lagu saarayo waxqabadkooda dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarinta bulshada wayna aragnaa isbedelada ku yimid marka dalkeena qurbajoogi maal gashanayaan inay siyaasadda ka qayb galayaan inay wada tashigii dalka ay ku leeyihiin runtii raad wanaagsan qurbajooga waxa aan ku dhiirigeliyay inay oon maalintii horeba u sheegay inay yihiin safiiro una noqdaan safiiro dalkooda Somaliland iyaga oo u ololeynaya in la aqoonsado kuna taageeraan himilooyinka horumarineed waxaanu dhiirigelinay hindise suurtageliyay qurbajoogta Somaliland inay maal gashadaan taasoo fududeysay ka qayb qaadashada barnaamijka horumarinta qaranka dadaaladaasi waxaanu ku xoojinaynaa xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo qurbajooga caalamka sidoo kale waxaanu sii xoojinaynaa inay kaalin mug leh ka qaataan horumarinta qadiyadda qaranka ee ictiraaf raadinta Somaliland waxaan intaa ku darayaa oo kaliya waxa weeyaan wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya waxaynu ognahay maamaha Soomaaliya tiraahdaa in sinaantaada diidaadna sarreyntiisa diid arrin muhiima oo ka mid ah muddadii aan xilka hayay waxa kale oo ka mid ahaa inaanu u kuurgalnay geedi socodkii qalafsanaa ee wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya tan iyo markii ay wada hadaladu bilowdeen 2012 waxa guul daraystay isku dayo isdaba joog ah lagu doonayay in lagu gaadho go'aamo wax ku oola balse Soomaaliya diyaar marnaba uma ahayn si niyad sami ah inay arrintaas u gasho wada hadalada
حكومة الصوماليلاند intii aan xilka hayay waxay isku dayday inay si taxadir iyo xilkasnimo ku jirto u sii wado wada hadallada waxaanu go'aansanay inaanu cadayno mowqifka Somaliland ee ah dal madax bannaan iyo inaanu wada hadalladaasi noqon kuwa aan Soomaaliya u adeegsan dan siyaasadeed oo aan oranay laba dal baaniga xukuma iyo sovereignty-gan ay sheeganayaan runtii ay kaba hayso dhibaato imaka intii ay xukuumeen dhibaato ka hayso sovereignty-giisa inay raaliyaan nasiib darro wada hadalladaasi hore waxay daa ka rogeen daacad la'aanta maamulka Somaliland Soomaaliya shirkii ugu dambeeyay Djibouti ka dhacay intii aan xilka hayay waxa ahaa tusaale muuqda oo shirka waxaynu u tagnay umaynaan tagin shirka wada hadallada isku darka Somaliland iyo Soomaaliya shirka waxaan anagu joogay markaa Ethiopia waxaan aniga iyo madaxweynaha aan diyaarinay MOU si loo dhaqaajin lahaa markaan halkaas ayaan ku maqnaa MOU-gan si diyaarinayay iyo soo dhaweynta madaxweynaha marka taas ugu dambeysay tusaale ahaan waxaana sharaftu ay tahay mar haddii ummadan iyo dalkani ay goosteen inaanay Soomaaliya wax ka dhaxayn kara aanay jirin iyo wax common ay leeyihiin aanay jirin boqolkiiba 79 sano sheegay ay u codeeyeen madax bannaanidooda intiina maanta halka ay hor joogtaan laga yaabaa intiina badan inaydaan arag calan Soomaaliya ah iyo xukun Soomaaliya waxaan filayaa in beenta qaawan ay danaheeda gaarka siyaasadda ku fushanaysay ay ka saartay inaga saartay kalsoonidii waxayna iftiimisay istiraatiijiyada Soomaaliya ay ku doonayso inay wada hadallada ku siyaasadayso sababo iyaga u gaara Soomaaliya waxay si joogto ah ugu fashilantay inay ixtiraamto heshiisyadii hore taasoo sii luminaysa kalsoonida waxay lagu heshiiyay dhowr iyo 10 sanadood mid kaliya oo ka fulisay ma jirto markaas aynu ugu kalsoonaan karnaa maanta wada hadal dambe oo la yeelano Soomaaliya anigoo wasiirkii arrimaha wasiirka kasii baxayay marka wasiirkii hore arrimaha dibadda oran kara intaan dhawaan bariilaasad madaxda wareejinaya waxaan taageeray xafiiska madaxweynaha inaan ururino dhammaan wada hadalladii hore oo dhan oo noo haynaa dawladda iyo wasiirka cusub inaan ku wareejino lagana diyaariyo warbixino badan iyadoo la adeegsanayo khubaro reer Somaliland waxaanu si wada jir ah uga shaqeynay ilaalinta madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland iyo inaanu mowqifkayaga si adag oo cad u muujino inkasta si socodka wada hadalladu oo xidhan yahay oo ku xidhan yahay mandaafka naga dhaxeeya inaga iyo dawladda layla Soomaaliya maxaa yeelay ta ugu wanaagsan ee maanta ay Soomaaliya sameyn lahayd mar haddii aanay suuro galahayn in aynu noqono dal kaliya mar haddii aanay suuro la soo noqonay madax bannaanideennii mar haddii aynu ahayn markii hore dal xor ah mar haddii even aanay helahayn hal warqada Soomaaliya oo ku caday oo legal ah oo cadaynaya in midnimadeennii aynu la midownay oo aan wax haba yaraatee la sharciyay aan ahayn waxaynu goosanay markaa inaynu dalkeena xuduudihiisa nabadgelyadiisa shaqo abuurka maxaan ku rahdaa wax walba aynu ka shaqeyno aynu halkaa ku dhaafno arrimaha Soomaaliya waxaan soo dhaweynayaa wasiirka cusub loo magacaabay halkan
waxaa kaloo aan aada ugu mahadnaqayaa madaxweynihii hadda ka dhacdhacay xilka mudane Muuse Biixi runtii